qiimahayga loo gartay ee loo ilaalinayo ayaa loo baahan yahay diinta islaamka in qiimahayga qadarkayga intoo la garto in loo ilaaliyo. maanta innaka su'aasheennaa badan, baahideennaa badan. waxaa dadku inta badan ay eegaan inta nicmadda ka maqan bay eegaan, inta nicmadda ay haystaan ma eegaan. nicmadda aragga, nicmadda maqalka, nicmadda caafimaadka, nicmadda insaaniyadda, nicmadda arsaaqadda. wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha. haddii nicamta ilaahay nagu galladaysay haddaad tirisaan baa ilaahay le ma soo koobi karaysaan. ilaahay bay nuu nicmeeyey. marka ducana ta ugu fadli badan buu nebigu yihi waa maxay? waa inaad tidhaahdid mar walba alxamdu lilaah calaa nicmat aliimaani waalislaam. weliba nicmadda ugu weyne ilaahay jalla wacala uu ina siiyey waa nicmadda islaamnimada weeyaan. dad badanoo maanta muslimiina nicmadda ma qadariyaan. nicmat alislaam haddaan garan lahayn oon hoos u eegin lahayna iyadaa nicmo inoogu filan. mithqaala darra min iimaan, qofka qalbigiisa mithqaala darra min iimaan oo khayra ama iimaana uu qalbigiisa ku jiray adduunyada ka taga buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, ilaahay jannada waxa uu ka siiyaa jago leeg adduunyada 10 leeg baa jannada ilaahay ka siiyaa. dad muslimiina oo shahaadanaya oo weliba diintii danaynaya oo masaajidii camiraya oo diintii baranaya oo diintii dhegaysanaya oo diintii ka hadlaaya ayaa ilaahay naga dhigay. kam nicmadda qadarkayga maba garan karnaba maanta innagu. dadka ahla dunyuhu adduunyadooda qadarkayga way gartaan. magaaladan aad ku nooshaan lacag suuqala lama maro, waa sugna. dahabkana warkiisaba iska daaba. sida dahabka iyo lacagta qiimahayga loo gartay ee loo ilaalinayo ayaa loo baahan yahay diinta islaamka in qiimahayga qadarkayga intoo la garto in loo ilaaliyo. maa qadaru llaha xaqa qadrihi. ilaahay cadamadiisii, macrifadiisii, cibaadadiisii uu xaqay nooga lahaa umaanu caabudin, umaanu garan. markaasaa ilaahay ludfigiisa iyo karamkiisa iyo dulqaadkiisa ilaahay nagula tacaamulaya. waa ilaa acmaal aan mutaysannay inaan arlada dusheeda aan ku joogno ma hayna maanta, laakiin raxmaddiisaan ku joognaa, dulqaadkiisaan ku joognaa, ludfigiisa ayaan ku joognaa, asturkiisa ayaan ku joognaa. yaa man adhara aljamiil wasatara calaya alqabiix. waa munaajaadkii nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam. rabbigii markuu la munaajoonay uu ku ducaysan jiray yaa man adhara aljamiil wasatara alqabiix. ilaaha quruxdaydii sifaadka igu wanaagsanaa intii wanaagsanayd ii muujiyey ee intii ceebtayda igu ogaana ii qariyayow allahaasaa mahadla buu nebigeenu ku ducaysanaya habeenka markuu ilaahay la munaajoonayo. innagu maanta nicmad markaan maqallo waxaa maskaxdeenna markaaba ku soo degdegaysa adduunyada dhalaalkeega. dadkii adduunyada soo maray kii ugu nicmad badnaa ee ugu barwaaqo badnaa, laakiin maxay ugu taallaa ayaan darro wuxuu ka baxay adduunyada isagoon ilaahay rasuulkiisa garanayn. laa yagurannaka taqallubu aladiina kafaruu fi lbilaad mataacun qaliil uma ma'waahum jahannam wabi'sa almihaad. ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay weligoodba gaaladan arladan ay kolba dhinac u gagadoomayaan ee kolba waxay teknoloji ay soo saarayaan ha ku degin baa nebiga lagu yihi, ha ku degmin. waxaan doonaynaa baa ilaahay yidhi waxaan darhum yaakuluu wayatamatacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun baa ilaahay yidhi. ha cunaano, ha ciyaaraan, ha iska tuntaane iska dhaafbaa nebiga lagu yidhi, gadaal dambayse ogaan doonaana baa ilaahay yidhi. mataacun qaliil, in yar weeyaan raaxada adduunyadu. hadday haystaanna in yar bay haystaan. uma ma'waahum jahannam, halkay ku hooyanayaani waa jahannam baa ilaahay yidhi walciyaadu billaah. adduunyada ugu barwaaqo badan buu ahaa, ugu nicmo badan, laakiin adduunyada waxa uu ka baxay isagoon ilaahay rasuulkiisa aanan garanayn, isagoon allihii abuuray xidhiidh la yeelan, daarta loogu talagalay loo noqonayana aanan u sahay qaadan. nebigii la soo diray calayhi salaatu wasalaam ee bashariyadda caalamkao dhan la yidhi way indhalaayihiin waxba ma arkayaan, adigaa indhaqabee bini aadamka soo badbaadi la yidhina noloshiisii iyo dhaqankiisii buu u arkay dib u socodnimo.
afaman yamshi mukibban calaa wajhihi ahada am man yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim baa ilaahay yidhi. ilaahay rasuulkiisa ninka raaca waa ninka caadiga labada lugooda caadiga ku socda weeyaan. ilaahay rasuulkiisa ninka yidhi ma raacaayo, diintay la yimaadeen iyo shareecadoodana qaadan maayo, amarka ilaahay qaadan maayo, nebi maxamed dariiqadiisii mari maayo, dhaqankii nebi maxamedna dhaqan ka dhigan maayo ninka yidhi waa nin yidhi madaxaan ku soconayaa. madax ku socda weligii meel ma gaadho. adduunyada dadka soo maray buu ahaa kii ugu nicmo badan ee ugu barwaaqo badnaa. hal mar keliyo naarta la geliyey buu nicmadda adduunyado dhan ku halmaamay. xadiidu macnihiisu ahaa dadkii adduunyada soo maray kii ugu dhibaatada badnaa, ugu mashaakilka badnaa, kaasaa banka qiyaama la keeni buu nebigu yihi, isagoo laakiin jannada loo sii wada ahlu jannaa. hal mar keliya jannada la tusin ama la gelin, yusbaq waa la gelin mar keliya, waa laga soo qaban. markaasaa la odhan doona weligaa ya allaha intaad adduunyada ku noolay wax dhibaato ah, wax mashaakil ah, wax masiibo ah ma la kulantay? intuu ilaahay ku dhaarta buu odhanayaa may, weligay dhibaato maba arag buu leeyahay. waana kee? waa dadkii adduunyada soo maray kii ugu dhibaatada badnaa, kii xaggiisa faaqada iyo dhibta iyo mashaakilku iyo faqrigu uu ku badnaa weeyaan, ee dadka ugu nolol liitay xagga nolosha maadiga marka laga hadlo. daahirka sidaasuu ka ahaa, laakiin gudaha uu ka raaxaysanayey. daahirka le noloshu midna waa mid daahirka ku tacalluqda maadada, midna waa mid gudaha. gaalada ilaahay markuu nebigu yidhi addunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir, marka uu nebigu yidhi gaaladu janno kuma jiraan. jannada uu nebigu sheegi waxa weeyaan shahawaadkoogii adduunyada inay ku gudanayaan weeyaan, waxba ka xaaraan maaha iyaga. waxay rabaan bay cunayaan, waxay rabaan bay cabbayaan, siday rabaan bay u soconayaan, waxay rabaan bay daawanayaan, meeshay rabaan bay marayaan, waxay rabaan bay fuulayaan, waxay rabaan bay ku hadlayaan. waayo iyaka maaragtaan xalaal iyo xaaraantu qofka muslimka loo soo dejiyey shareecadaas. qofku markuu ashahaato ee uu islaamnimada soo galo ayay xalaashii xaaraantu qabanaysaa. marba hadduu gaal yahay, uu ilaahay garanayn, uu rasuulkiisii garanayn, uu shareecadiiyo diinta aaminsanayn, shahawadiisii adduunyadanu ku gudanaya isagu. markaa jannadiisii waa halkan. maalintuu dhintana jannadiisii buu ka baxay oo jahannama loo qaadaya isaga. muslimku daahirka haddii xataa uu noloshiisu ka toosnayn, uu dalkiisu burbursan yahay, oo abaaruhu ku badan yihiin, oo colaadu ku badan tahay, oo faqrigu ku badan yahay, oo bugtaantu ku badan tahay, oo rafaadku ku badan yahayna, qofoo muslimku guduhu ka raaxaysanaya. adduunyadu way nagu weynaan agteenna, waxaa la rabaa inay nala weynaato diinta islaamka. muslim aakhiradu waa inay nagu weynaato. waa la dhimanayaa, dhimashada waxaa ka dambeeya ha kula weynaadaan. qabri baa ku sugaya, qiyaamaa ku sugaya, janniya naar baa dambaysa, ilaahay baa lagu hor joojin doonaa. noloshaadii adduunyada 100kii sane lagu siiyey, 60kii sane adduunyada lagugu deeqay, 50kii sane adduunyada lagu siiyey, waxaad ku soo qabatay baa lagu weydiin doonaa. daqiiqad baa lagu weydiin doonaa. 50kii sane adduunyada lagu siiyey, waxaad ku soo qabatay baa lagu weydiin doonaa. daqiiqad baa lagu weydiin doonaa.